ka waran adigoo kaniisad weligaa ku jiray maraykanka ku taalla haddii lagu soo diro casuumaad aan inaba caadi ahayn lagagana soo diro magaalada jidda ee dalka saudi arabia casuumaaddaasna ay ku lifaaqan tahay jooniyada lacagaa ood fakriga kaga bixi doontid muslimiinta iyo islaamkana aad ka aaminsan tahay fikir khalad ah maxaase dhacay shakhsigaanu markii ugu horreysay oo buurta carafo uu fuulay asaga iyo suuratu faatixa intuusan qur-aanka akhrintiisa bilaabinin maxaa kala qabsaday shaqada loogu yeeray ee sacuudi arabiya loogu yeerayse waa maxay inuu qur'aanka kariimka af ingiriis ku turjumo ku soo dhowaada walaalayaal qisooyinkii aad naga dalbateen inaanu toddobaad walba maalin mar idiin soo gudbino qisooyinkan aanu idiin doornaa midba intay midda kale ka xiisa badan tahay ka kooban tahay kana macno iyo dareen badan tahay ayaanu jecelnahay inaan idinla wadaagno dhowrka daqiiqoo soo socdana waxaan hubaa haddii allah awoodda le uu yidhaahdo dareenkaad halkan kusoo fadhiisatay ka duwan inaad kala tegi doontid samuel shobshar waa nin u dhashay dalka maraykanka hay-adaha xuquuqul insaanka iyo kiniisadaha ayuu u shaqaynayay muddo dheer afka ingiriiska ayuu aad iyo aad ugu talax tegay dabadeedna dowladda sacuudiga ayaa waxay go'aansatay aan iraahda inay qur-aanka kariimka af ingiriis ku turjunto af ingiriiskaas oo ah kan maraykanka looga hadlo maanta si generationka cusub ee maanta ku nool dalka maraykanku markay qur-aanka akhriyaan ay u fahmaan luqad ay fahmi karaan oo maantana uu ku qoran yahay ilaan luqaddu mar walba way isbeddelaysaaye haddaba ninkan ayaa waxaa laga soo codsaday inuu yimaado sacuudiga waxaa lagu yidhi dhaqaale lagagama baahnaa balse annagaa ku siinayna intaad joogtidna barwaaqad ku noolaanaysaa iyo baabuur iyo guryo waaweyn iyo waxaa la yidhaahdaa luxury life nolol aan caadiba ahayn wuxuu yidhi dareenkayga ayay soo jiidatay jawaanada lacagta ah cabsi iyo walwal baan ka qabaa muslimiinta oo idaacadaha iyo warbaahinta maraykanka waxaan ka dhegaystay maahane wax kala war uma hayo waxaana la igu yiri buu yidhi saaxiibada igu yidhaahdeen war inta lagu afduubaa korka yarkaa lagu hordhigayaye gurigaaga joog si kastaba ha ahaatee waxaan aqbalay buu yidhi in aan imaado sacuudiga jidda saudi arabian kasoo degay buu yidhi dabadeedna waxa uu yidhi markaan sacuudiga imid shaqada la ii yeeray waxay ahayd oo keliya proofread qur-aanka inaan ku sameeyo marka la turjumo qur-aanka inta aan dadka loo qaybinin oo dunida lagu sii daynin inaan akhriyo buu yidhi oo markaa luqadda aan ka saxo takhasuskiisu waa luqadaha ogow allaala markaan qur-aanka akhriyo hameen walbaba su'aalo ayaan qoran jiray buu yidhi su'aalahaas ayaa wax iga jaahil bixiyana subaxii aan raadin jiray shaqo kale ma qabta buu yidhi qur-aanka inaan akhriyo keliya la igu yeeray mar kastoo aan qur-aanka akhriyo su'aalihiina jawaab baa la iigu keenaa buu yidhi maalin maalmaha ka mid a ayaa shakhsi ka mid a dadkii isoo casumay wuxuu yidhi maskiidka ayaanu u soconaaye notimaajid masaajidkii ayaanu tegay buu yidhi gadaal ayaanu iska fadhiisay dadkoo tukanaya ayaan arkay waxaad ogtihiin walaalayaal masaajidku xataa si kastoo cadceedda bannaanku u kulushahay inta aan masaajid adduunka arkayey ama qaaradan yurub ha ku yaalaan ama dalkeennii hooye ha ku yaalaan meel kasta oo masaajid ku yaallo wuxuu guryaha kale uga duwan yahay xataa hadduusan marawaxdo lahayn qaboojiye markaad cagta masaajidka soo gelisid jirkaaga uu qaboobaya laakiin qalbiga wax kalaa qaboojiya hawo ma ahan iyo layr dib baan ooga imaan doonaa calaa kulli xaal maskiidkii baan soo galay buu yidhi waxaana i hareereeyey buu yidhi tuma'niino iyo raxmad baa i hareeraysay buu yidhi waxaana dareemay inaan nabad ku suganahay naftaada madaad ka nabadgeli weyda mushkiladeeday leedahay bismillah waxaa dhacday buu yidhi 3 maalmood baan daawanayay dabadeedna nin baan ku iri buu yidhi sida loo tukado ibar dadkii muslimiinta ah ka mid ah meeshaan isku baranay maskiidkii dabadeedna wuxuu i baray suuratu faatixa markii ugu horreysay baan waxaan bilaabay buu yidhi bal markii hore ingiriis ahaan baan u akhrinayo dan kama lahayn bal markaan inaan dhuuxo macnaha waxaana i soo jiitay buu yidhi dhowrka eraya ugu horreysa arraxmaani arraxiimi maliki yowmi ddiin arraxmaani arraxiim
malik yowmiddiin ayaa isaameeyey buu yidhi aad iyo aad baa nooga helay waxaana kaloo ku raaxaysan jiray buu yidhi markii xilliga salaada la soo gaaro oo meel walba aadaanka uu isqabsado xaya cala asalaat kaalayoo tukada xaya cala alfalaax war liibaan iyo nimco adduuniya mid aakhira u imaada haddaad timaadaan iyo haddaad imaan weydaan laa ilaaha ila allah rabbi mulkigiisa waxba kuma kordhin kartaan waxna kama dhimi kartaan waxdaaniyadiisana gaar buu leeyahay oo waa keligii oo wax lamida ma jiraan ya salaam walaalayaal ninkii odayga ahaa aadaanka ma sugi karin buu yidhi salaadba salaaday u dhaxayso muslim ma ahan laakiin qalbigan ilaahay baa wata qur'aankii akhrintiisii baan u macaansaday buu yidhi waxaana go'aansaday buu yidhi maalin maalmaha ka mid ah inaan idhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah shahaadadaydii baa la ii qabtay buu yidhi qalbiga ayaa i garaacaya waxaana u socdaa buu yidhi markii ugu horreysay warqad yar baa la isiiyey inaan muslim ahay oo sacuudiga aan umaan teginin laakiin dadka tegay waxay sheegaan inay leeyihiin waddooyin loogu talagalay dadkaas maxaa lahaa diinaha kala haysta iyo dadkan muwaxidiinta ah markii ugu horreysay waxaa laygu talagalay waxaan soo qaatay buu yidhi warqad ii ogolaanaysa inaan masjidka barakaysan galo anigoo qalbigu i garaacayoon sugi karaynin khamiisna ku labisan ayaan isku sii daayay buu yidhi kacbadii albaabka markaan ka galo kacbadii arkay ayaan waxa uu yidhi qalbigaygu waxa i hareeyey buu yidhi emotions dareen raxmad qabow barwaaq ayaa i haraysay buu yidhi halkaas ayaan dawaafkaygii koobaad ka geystay buu yidhi anoo indhahu ay i da'ayaan waxaana halkaa ka sii aaday buu yidhi muddo kadib xajkii baa lagu jiraa isla waqtigaase waxaan ka sii aaday buu yidhi buurtii carafo buurta carafo qof koray oo keliya ayaa garan kara dareenka ay leedahay maalinta carafo la taagan yahay adduunka oo dhan oo isha ku hayo raxmadda ilaahay ay qubanayso muslimiintana indhahoodu ay da'ayaan sidii geel jooga oo markaas aana laga maalayo kale buurta carafo haddii aan fuulay wuxuu yidhi dareenkaygii oo dhan baa isbedelay tii kacbada mid ka daran ayayna igu dhalaysay buu yidhi rabbi baana gacmaha cirka u taagtay anigoona cid kale haba yaraatee aan ugu sharig yeelayn anoon ilaahay u sharig yeelayn subxaana watacaala الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين halkaas ayaan buurtaas fuulay buu yidhi rabbi subxaana watacaala waxaan ka baryay buu yidhi in uu xaqa igu dilo waxa uu haatan yahay ninkan dhallinyarada ah ninkan hadda da'da waxa uu yahay qof muslin ah oo diinta ilaahay fidiya oo dalka maraykanka ixtiraam badan looga haya dadkii kaniisadaha ay iskala shaqayn jireen iyo xuquuqul islaamkana asaga dartii uu ilaahay sabab uga dhigay inay dib u soo noqdaan oo islaamaan waxaa laga baran karaa qisadan iyo qisooyinka kale oo la mid ah in ilaahay subxaana watacaala uu hidaayad hayo qofka uu rabana asagu meesha uu doono usoo marin karo aniyo adigu waxaanu ku dhalanay guryo muslimiin ah mana dareemi karno xaqiiqatan culayska diintan iyo sharafta iyo karaamada ay leedahay halkaa markay maraysay waxaan anigu rabbigay u qiray ilaahnimo keligiis ilaa xaq lagu caabudoona isaga hayna ma jiro waxa lagu daydana maxamedun rasuulullah ayaa ugu wanaagsan albaabada raxmadda ilaahay cid walba way u furan yihiin aynu garaacno intaanu qisadan oo kale aanu dib ugu kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idiin rajeynayaa saaxiibadiin la wadaagtaan iyo guul iyo gobonnimo asalaamu calaykum waraxmatullah